الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونيقوم مقعوية فرحان عبد الله هيلترى ما توحرنا إن شاء الله إنا بلونا عشر تحنين نقول دونا جرهان ما توحن كوه ريندونا كورس كله يقنا فيسيولوجيا أو أنكوه ريندونا قيبت له يقنا ولي بنا respiratory system كل respiratory system وحياة بدن وات كسو عرفتي حياة بدن وات كأوقتهاي ويران هنتس وات كايزتا لكن إن شاء الله وحنا رجلنا نتكفى إذا دونتو ويران wax ku qanciya inaad ka faa'iido doonto insha Allah kulay maadaama soo aragtay respiratory iyo wuxuu yahay iyo sidoo yahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa si toos ah u guda galno oo si toos ah u dhaxgalno insha Allah ila soo insha Allah respiratory waxa loo respiratory system saadu garanaysaba waxa weeye saan ognahay waa habka aan u neefsano aan neefta u qaadano una soo saarno kaasi waa loo yaqaanaa respiratory system waa process of ventilation is how to in and out of the air marka insha Allah markaan respiratory ka hadlayno waxaan xogaa isku eegi doonaa as diagram ku muujinaa sawir ahaan ku muujin doonaa insha Allah ila socod marka ugu horeysa waxaan muujin doonaa waxa loo yaqaan trachea oo ah the main area of the respiratory system trachea markaan ka hadalno waa sidana trachea is like this trachea marka uu sida yahay waxa uu leeyahay incomplete ring of cartilage oo sidana incomplete ring of cartilage hadaba tracheahaasi waa the main airway of the respiratory system ring of cartilage kaasina waxa uu inoo ilaaliyaa waxa weeye waa to keep a patency maxay tahay waa in aad u neefta u qaadato si sax ah si normal ah inaan u neefsan karno ayuu ilaaliyaa ringiga of cartilageskaas haddaba tracheaha above the trachea waxa ku yaala loo yaqaano larynxkaas oo ka kooban ku sii yaala vocal cords oo ah halka laga soo saaro codka larynxkaasina waxa uu ka samaysan yahay made of cartilage haddaba larynx is like this is larynx and this is vocal cord larynx this is larynx haddaba larynx markuu sidan yahay halkan larynx hoostiisa waxa ku yaala waxa loo yaqaano cricoid cartilages haddaba cricoid cartilageskaasi waxa uu ku xiran yahay larynxka waxaana isku xiran ligaments loo yaqaano cricothyroid ligaments sometimes waxa dhacda in as emergency loo furo si uu qofku uga neefsado waxyaabaha emergency markay neeftiisu ku dhigto xaalad emergency oo galo waxa la sameeyaa in laga furo halkan loo yaqaano cricothyroid ligaments si uu uga neefsado qofkaasi haddaba cricoid cartilageskaas wuxuu ku sii leeyahay trachea haddaba markaan ka hadalno esophagusku waa posterior behind the trachea esophagusku wuxuu ku yaala posterior behind the trachea uu yaala like this haddii aan graph ku muujino this is trachea like see trachea and here is a connective tissue then trachea is here esophagus is here and esophagus is a thick muscular walls ayuu leeyahay esophaguskaasi thick muscular walls buu leeyahay this is a trachea like C shape with a ring of cartilage markaan ka esophaguskaasina wuxuu ku yaalaa waxa ka dambaysa trachea haddaba markaan u gudubno larynx markaan eegno this is here laga dareemi karaa larynxku waa anterior of the neck markaas aan tiraahdo waa dareemi kartaa waxa kale oo loo yaqaan waxa weeye waa Adam's apple baa loo yaqaan Adam's apple baa loo yaqaan haddaba markaan imano trachea markaan ku soo noqdo tracheahu is divided si qaybsama wuxuuna qaybsamaa two bronchioles wuu qaybsamaa bronchial is like this wuu qaybsamaa bronchioliskaasi uu qaybsamayo like this and right and left this is left and this is right this right and left bronchi and this right bronchials haddaba right and bronchi markaan ka hadlayno right bronchial is straight down
si hoose ayuu u sameyn yahay oo hoos ayuu isagu dhacaa halka otherwise the left bronchi is a side of the lungs angle of the side dhinaca uu xigo oo halka u dadban yahay dhinaca that is why for example iminka haddii uu qof ilmo yar ah oo wax liqo beneath haddii uu liqo uu trachea maro nearly always wuxuu toos u tagayaa right of the lungs because of the right bronchi is straight down otherwise the left bronchialis angle of the side that is why shaykaas ay u tagayo markaa right lungiga waa nearly always badana way sometimes like this sida loo sameeyay bronchialisku to bronchitis haddaba bronchitis markuu saa sameeyo still waxa uu leeyahay incomplete ring of cartilages iyo kasii koobay haddaba bronchitis-ka waxaa loo yaqaanaa lobobronchi lobobronchi baa la yaqaanaa because of sababtoo ah waxay tagayaan this is called markay sii qaybsamaan waxaa sii qaybsamaan lobobronchi wax loo yaqaano bronchiga sii qaybsan wuxuu sii qaybsan lobobronchi because this bronchis to go upper lobe and this bronchis to go lower lobes bronchis ka so lower this is two lower bronchis and this is three lower bronchis this is because right lungs is a three lobes and left lungs is a two lobes that's why this is two lower bronchis and this is three lower bronchis haddaba bronchitis kan waxa uu sii qaybsamaa small bronchial buu sii qaybsamaa small bronchial buu sii qaybsamaa like this small bronchial buu sii qaybsamaa small bronchi buu sii qaybsamaa haddana way sii qaybsamaan small bronchi way sii qaybsamaan kadib waxay noqdaan marka dambe bronchioles bay noqdaan waxa loo yaqaan markay small bronchi sii noqdaan sii qaybsamaan bronchioles yaa loo yaqaanaa bronchioles bay noqonayaan bronchioles haddaba bronchioliskaasi was like the frame waxa laga waa frame pattern like a tree this is like a tree oo kale tismaya this trunk of the tree and this is like a tree basically so geedka oo kale ay u sameysmaa trachea this is a bronchitis this is here bronchiolis sometimes waxa ku dhaca bronchioliskaasi waxa loo yaqaan bronchitis-kaasina inta badan wuxuu ku badan yahay dadka jooga meelaha sigaarka lagu cabo ama who have the smoker qofka sigaarka caba laftirkiisa ayaa inta badan waxa ku dhaca waxa loo yaqaan bronchitis oo bronchitis itis means waa maxay itis is inflammation every shay ka soo ku aragto inuu ugu dambeeyo itis that's the inflammation is way itis erega itis it is inflammation means it's inflammation means itis inflammation this here is sometimes waxa ku dhaca bronchitis kaasina wuxuu ku badan yahay dadka smokerska ee sigaarka caba ama secret smokers dadka loo yaqaano ee jooga dadka sigaarka caba aad iyo had jeer agtooda jooga kuwaas loo yaqaan haddaba marka aan diagram ku muujino lungiski here is a lung form of lungs sorry here are lungs this is lungs. Lungs is left lungs is a two lobes like this. Two lobes, upper lobe and lower lobes. This is upper lobe and this is lower lobes. Right lungs is like this. This is right lungs is a three lobes. This is one lobe and this is one lobe. Upper lobe, middle lobe, and lower lobes. Okay. Sometimes there is a infection of the lobes. Sometimes there is an infection. If the infection is one lobe, it's called a lobe pneumonia.
lobar pneumonia. If there is one lobe is infection, this lobe is affected infection, that it called lobar pneumonia. This is lobar pneumonia. Lobar pneumonia. This is a lobar pneumonia. What if lobar pneumonia is if the one lobe is infections. Kaasa loo yaqaan haddii halka loobi uu infection noqdo oo infection uu yeesho kaasa loo yaqaan lobar pneumonia. But marka wax laga sometimes waxa dhacday pneumonia oo the lobes ay gudubto marka laakiin haddii hal loob ay tahay wax loo yaqaan lobar pneumonia. Haddaba lobar pneumonia ayaa loo yaqaan. Insha Allah إن شاء الله أنا سألنا هدي أتفهم من الفيديو كان مرة لبعض وكسر عشان كرتا سياد أفهمته بوجي قلنا سوق هذا وحي كيف فهمته إن شاء الله وحلا جايبين هذا كيف أنت بدل أفكار صباحية والقرآن كرتا سياد أدي من أفهمته this pneumonia هذا بمركان كهذا إنه لانجيسكي عن كهذا إنه لانجيسكو مركان عن نفسنا إنه أما عن نف قادنا إنه وحكي له إنه عاوية ريبسكا thoracic ينقعد. This is a ribs. There is a 2 ribs major marka. 2 ribs. Other side is 2 ribs kaasi marka waxay naga caawiyaan inaan neefta qaadano. Haddaba ribiskaasi waxa ay leeyihiin intercostal musculus bilay. Intercostal musculus kaasi this like this. Intercostal musculus isku xira. Intercostal musculus. This intercostal musculus. This is what external intercostal musculus. This is external intercostal musculus and this is intercostal musculus. This is intercostal musculus. Other side is like that. This is external intercostal musculus. And this is intercostal musculus. This is external intercostal musculus and this is intercostal musculus. That's why 12 ribs kaas with intercostal musculus kaas waxay naga caawiyaan neeftas marka aan neefsanayno neefti qaadano the ribs up and out. That's why an intercostal is waxay naga caawiyaan marka neefti qaadanayno inay maxay hayday ay up soo noqdaan soo baxaan marka neefti deynana in ay noqdaan down and in is noqdaan. That's why inaga marka haddaba markaan ka hadalno this here is the main muscle called diaphragm. The diaphragm, the bottom of the lungs, is divided to the lower cavity, the lower lung cavity, and upper abdominal cavity. Between the lower lung cavity and upper abdominal cavity. This is a diaphragm. Haddaba diaphragm markaan ka hadlayno waxa supply gareeya 2 nerves loo yaqaano phrenic nerves. This is waxa supply gareeya 2 nerves loo yaqaano phrenic nerves loo yaqaano ayaa supply gareeya nerveskaas marka laga hadlo neefsashada marka laga hadlo 75% waxa supply gareeya the diaphragmka xagga 25% isku ay supply gareeyaan the ribs with intercostal musculus ay supply gareeyaan taas baa loo yaqaan marka neefsanayno neefteena 75% waxaana supply gareeya diaphragmka halka 25% kuna ay supply gareeyaan
ribiska ay sabalgareeyaan insha Allah cashirkeena maanta intaasaan kusoo koobi doonaa waxaan malaynayaa inaad waxyaabo badan ka fahantay haddii aanad waxyaabo ka fahmin insha Allah kusoo cesho mar labaad haddii aad fahmi weydo waxa laga yaabaa in si fiican aad u fahanto assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh